dhowaantan markii uu soo gabagaboobay shirkii gaashaanbuurta NATO ee magaalada Vilnius ee dalka Lithuania, madaxweyne Erdogan ogolaaday inuu baarlamaanka dalkiisa u gudbinayo inay u ogolaadaan dowladda Sweden inay ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO. Dowladda Turkigu waxay iyaduna istustay in la soo gaaray xilligii loo ogolaan lahaa inay ka mid noqoto midowga Yurub. ugu horreynba dalka Turkigu wixii ka dambeeyay 1999kiiba waxa uu hangaltaagayay inuu ku biiro midowga Yurub. waxaase hor yaallay 3 shuruudood oo ay sheegaan had iyo gooraale dalalka ka tirsan midowga. tan koowaad ayay sheegaan dowladda Turkigu inaanayba ahayn dowlad ku taalla Yurub. markaas soo dhaweyso khariidada Yurub waxaad arkaysaa 3% dhulka Turkiga ahi inuu ku yaallo Yurub, halka 97 kale ay ka tirsan yihiin qaaradda Aasiya. farsamo ahaan Turkigu waa dal ka tirsan qaaradda Yurub, balse 97% dhulkiisu waxa uu ku yaalaa qaaradda Aasiya. Turkiga oo loo ogolaado midowga Yurub waxa uu horseedayaa in midowga Yurub uu soodimo la yeesho dalalka kale ah Armenia, Georgia, Iran, Iraq iyo waliba Suuriya. dalalkaas oo dhan ayay dowlado badan oo midowga ka tirsan ka biyadiisan yihiin inay soodimo la yeeshaan. sidoo kale waxaa jira dadyo badan oo midowga Yurub u dhashay inay qabaan haddii Turkiga loo ogolaado inuu ka mid noqdo midowga Yurub inay dowlado badan oo kale u hanqaltaagayaan. waxaana sheegeen dowladda yar ee Georgia oo aan Yurub ku oolayn inay iyaduna doonayso inay ka mid noqoto midowga Yurub maadaama ay soodin iyaduna la wadaagto dalka Turkiga. sidoo kale hore waxa uu jirtay 1987kii in dowladda Morocco ay u gudbisay midowga Yurub inay doonayso inay ka mid noqoto midowga. xilli dambeys dowladaha midowga Yurub 100% arrintaa waa ay diideen. Morocco waa dowlad aan gebi ahaanba soodin lahayn dalalka midowga Yurub marka laga reebo inay la wadaagto soodin badeed oo kaliya. sidoo kale dadyo badan oo reer Yurub waxay aaminsan yihiin Turkiga oo ka mid noqdo midowga Yurub in dhaqankooduba uu baaba'ayo. 2009kii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Belgium waxa uu sheegay inaan marnaba Turkiga loo ogolaan karin inuu ka mid noqdo midowga Yurub. arrinta ayuu ku sababeeyay in gebi ahaanba diinta Islaamku ay meesha ka saarayso dhaqanka Kirishtaanka. dowladda Turkiga iyo dadkeeda muslimiinta ahina ay saameyn weyn ku yeelanayaan qaaradda. caqabadda labaad ayay ku sheegaan inay tahay mid la xiriirta dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Turkiga. waxay Yurubiyaanku sheegaan wixii ka dambeeyay afgambigii la isku dayay 2016 in xilka lagaga qaado madaxweyne Erdogan in madaxweyne Erdogan uu isu bedelay mid keligii taliye ah, gebi ahaanna uu meesha ka saaray xuquuqdii hadalka xorta ah, warbaahinta uu kantaroolo iyo in uu gacan bira ku qabto nolosha dadka Turkiga ah. waxyaabahaas oo dhan ayay ku sheegaan inay yihiin kuwa ka hor imanaya xorriyadda midowga Yurub. sidoo kale Yurubiyaanku waxay ku eedeeyaan madaxweyne Erdogan ciidamadiisa had iyo gooraale uu diro inay ka dagaalamaan waqooyiyada Iraq iyo Suuriya, halkaas oo ay dowladda Turkigu kula dagaalanto kooxaha qaswadayaasha ee argagixisada ee Kurdiyiinta. waxay kaloo ku haystaan lugtii uu ku lahaa dagaaladii ka dhacay dalka Liibiya, halkaas oo dowladda Turkigu ay ciidamo u dirtay, iyo waliba tan saddexaad oo ah inay dowladda Turkigu iskaga hartay gebi ahaanba cunaqabataynihii kala duwanaa ee la saarayay dowladda Ruushku markay weerarka ku soo qaaday dalka Ukraine. tan kale dowladda Turkigu waa ta kaliya aqoonsan dowladda waqooyiga Qubrusta kale ayaa waxay tahay mid ka tirsan midowga Yurub. haddiiba ay doonayso dowladda Turkiguna siday sheegayaan midowga Yurub dowladaha ka midka ahi inay ka mid noqoto midowga, waa inay wada hadal toos la gashaa dowladda Qubrus kana dhigtaa dalmida. caqabadda saddexaad ayay ku sheegaan dowladaha Yurub inay tahay inaan haatanba loo baahnayn in midowga Yurub dowlado horle lagu daro. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ah shakhsiga ugu daran ee ka soo horjeeda in midowga Yurub dowlad horle ay ku soo biirto. waxa uu aaminsan yahay Yurub inay ku wanaagsan tahay inta ay haatan tahay. haddii dowlado kale ay ku soo biiraanna ay fasalgadmayso. sidoo kale Yurubiyaanku waxay u arkaan dowladda Turkigu inay noqonayso tan ugu badan marka laga hadlayo dadka. 84 milyan ayaa ku nool dalka Turkiga. baarlamaanka midowga Yurub ayayna noqonayaan kuwo ku leh awood aad u weyn. haatan baarlamaanka midowga Yurub waxa uu ka kooban yahay 705 xildhibaan. haddiise dowladda Turkigu ku soo biirto waxa uu gaarayaa 804 xildhibaan. waxayna dowladda Turkigu ku yeelanaysaa 96 xildhibaan baarlamaanka midowga Yurub, waxayna noqonaysaa dowladda iska leh xildhibaanada ugu badan. haddiiba ay sidaas u dhacdana waxay aaminsan yihiin dowladaha xubnaha ka midowga Yurub in siyaasaddii iyo midowga Yurub qaabka u shaqayn jireen gebi ahaanba uu khalkhalayo, loona kala jabayo labo. Turkiguna uu noqonayo kan inta badan hogaamiya ajandayaasha lagaga hadlayo baarlamaanka iyo meesha loo codaynayo. sababahaasoo dhammina waa kuwa ay midowga Yurub haatan u diidan yihiin dowladda Turkigu inay ka mid noqoto.
inta badan dadka Yurub waxay qabaan Yurub inay ahaato sida ay haatan tahay, dowladda Turkiguna aanay ka mid noqon midowga Yurub. Inkastoo aqoon-yahamiinta iyo siyaasiyiinta Yurub ay aaminsan yihiin in wadahadallada u dhexeeya Turkiga iyo midowga Yurub ee la xiriira in Turkigu ka mid noqdo midowga Yurub ay ahaadaan kuwo sii socda, balse arrimahaas oo dhan ayaa waxay noqonayaan kuwo lugooyo ah. Wixii ka dambeeyay 1987 dowladda Turkigu waxay ahayd mid si iyo si kaleba u doonaysa inay ka mid noqoto midowga Yurub, ilaa iyo haatanna ma aha arrintaasu mid ay ku guulaysatay. daawadayaal, haddii allaha awoodda la ogolaado, habeennimadan caawa waxaynu barnaamij ka samaynaynaa shuruudaha looga baahan yahay dowladda doonaysa inay ku biirto midowga Yurub. waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad inoo laygarayso, inoona sii sheergarayso. haddii aad tahay daawado aan kanaalka weli ku soo biirina, ka fikir inaad nagu soo biirto si aad u daawato muuqaallo midba uu ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.